kulankii la filayay inuu axadii toddobaadkan dhex maro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ergada dhexdhexaadinta xukuumadda iyo mucaaradka ayaan qabsoomin. ma jiro war rasmi oo ay ergadu ku xaqiijisay sababaha keenay dib u dhaca kulankaasi oo ay bulshadu sugaysay, laakiin warar wargeyska Geeska Afrika helay ayaa xaqiijinaya in sababta baaqashada kulankani ay tahay madaxweyne Biixi oo aan laga samaynin ballan rasmi ah oo ay guddidu la yeelato. geesta kale dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ayaa wafdi culus u soo diraya Somaliland. wafdigan ay hogaaminayso danjiraha dalka Denmark u fadhiya dalka Kenya Meet ayaa la filayaa inay soo gaaraan Hargeysa 18 bishan haatan aynu ku jirnay 12aad, iyadoo kulan la yeelan doonaan madaxweyne Biixi iyo xisbiyada mucaaradka, shirgudoonka labada gol ee guurtida iyo wakiilada, sida ay warar xogagaal u xaqiijiyeen wargeyska Geeska Afrika. wafdigan ayaa doonaya inay Somaliland cadaadis ku saaraan in doorashada baarlamaanka iyo deegaanka loo qabto sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo qorshuhu ahaa in ay doorashadaasi qabsoonto bishan haatan aynu ku jirnay 12aad. balse ay golaha guurtidu sameeyeen muddo kordhin 2 sannadood ah kadib markii ay duruufo jira saamixi waayeen in doorashadu ay bishani qabsoonto. si doorashadu ay u qabsoonto waxa ay dalalkani doonayaan in heshiis wadajir ah laga gaadho khilaafka ku saabsan dhismaha guddiga doorashooyinka iyo muddo kordhinta ay sameeyeen golaha guurtida ee 2 sannadood ah. wafdigan waxa uu socdaalkooda ku soo beegmayaa iyadoo ay weli dalka ka taagan tahay xiisad siyaasadeed. xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee u cidiya wadani ayaa qaadacay guddida cusub ee doorashooyinka, iyadoo uu xisbiga wadani la laabtay xubintiisa, halka la ansixiyay 6 xubnood ee kale ee komishanka doorashooyinka, kuwaasi oo iska dhex doortay gudoomiye. sidoo kale waxay xisbiyada mucaaradka qaadaceen muddo kordhinta loo sameeyay mudanayaasha golaha wakiilada.